بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa TV-ga Dansom Denmark igu casumay barnaamij inaan macnaha maartay barnaamijkan igu casumay barnaamijkaas oo aan baaq ugu direeyo ummadda Soomaaliyeed qaas ahaan Puntland magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Sheekh Maxamuud waxaan ahay gudoomiyaha urur siyaasadda shaqaalaha xoogsatada ah oo ka duwan gashan kana qayb galay doorashada saddex degmo ee Puntland run ahaantii waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan guddigii ka qayb galay in ay doorashada macnaha maanta hanaankeeda ay ka shaqeeyaan oo ay ka banaan baxeen Eyl Ufeyn iyo Qardho taasoo hadda macnaha aan ku guulaysanay inaan musharaxiinteena ay u tartamaan inay ku soo galaan macnaha degmada saas adligeed waxaan runtii ka codsanayaa dhammaan saddex degmo ee Puntland hadda aan soo qaadnay ahay Ufeyn iyo Eyl iyo Qardho inay cod ka siiyaan ururada shaqaalaha xoogsatada ah waxayna u siinayaan waxa urur shaqaaluhu wuxuu aaminsan yahay inuu hantidooda u ilaaliyo shacabka Puntland haddii aad rabtid inaad caafimaad fiican heshid dooro shaqa xisbi ururada shaqaalaha haddii aad rabtid caafimaad dooro ururada shaqaalaha xoogsatada ah haddii aad rabtid amni heshid dooro ururada shaqaalaha ururada shaqaalaha wuxuu kaga duwan yahay ururada kale wuxuu kaga duwan yahay waxa weeye dhalinyaro ayaa macnaha hoggaanka u haysa firfircoon wax baratay waxaan u maleynayaa macnaha maanta waa urur kaliya ah oo dhalinyaradu aad maartay u xiiseynayso waxa cod ka bixiyay Puntland waa dhalinyarada marka waxaan u sheegayaa dhalinyarada iyo aqoon-yahanada Puntland isbedelka hadda macnaha ka bilowday Puntland in uu macnaha maartay uu hoggaan u noqdo ururada shaqaalaha waana mahadsantihiin